waxaa maanta magaalada Leicester ee cariga Ingiriiska ka dhacay xaflad baroordiiq ah. xafladaasoo loogu talagalay in lagu xuso xasuuqii dhawaan ka dhacay magaalada Xamar, taasoo lagu beegsaday Hotel Shamow oo ay ku leedeen dad isugu jira arday, waalidiin, dhaqaatiir, wasiiro iyo aqoon-yahano, kuwaasoo dhammaantood lagu laayay qaraxaas naxariis darrada ahaa. galabta halkan waxaanu isugu nimid in dhibaatadii dhacday bishii 3 December wax laga yiraahdo. waxaa shirkaas ka soo qayb galay dadweyne fara badan kuwaasoo matalayay jaaliyad weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Leicester. waxaa kaloo shirkaas ka soo qayb galay waxgarad isugu jira culamaa u diin, aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo haween aad u badan. dadkii ka soo qayb galay shirkan ayaa waxaa ka muuqatay shucuur ku dheehan caro iyo murugo, ayagoo ugu yeeray ciddii ka dambeysay falkan in ay ka joogsadaan samaynta falalkan oo kale. kuwa xabadda loo dhiibayo inaad ka fikirtid, yaad dilaysaa waa wiilkaagii, yaad dilaysaa waa hooyada, yaad agoontameynaysaa carruurtiinni. ilaahay ka baqa. wixii dhacay muxuu ahaa oo Xamar ka dhacay bishii 3 xaraam buu ahaa. islaamka xukunkiisu muxuu ka yahay wixii dhacay Xamar xaraam buu ahaa. xaraam weliba oo keliya ma aha dunuubta kala waaweyn. waxaa jirta dunuub waaweyn la yidhaah kabaa'ir. kabaa'irtaas sii kala waaweyn waxaa jira la yidhaah 7 almuubiqaat, 7 ugu waaweyn ee waxay ku dhacda halaagaysa. nambarka 2 way wixii dhacay oo qatlu nafsi mu'mina, naf mu'minad oo la dilo. kulligeen walaalaheen waa naga wada dhinteen. kulligeen Allah samir iimaan naga siiyo. dadka jaamacadaha dhiganay dawlad ma ahayn, hooyooyinku dawlad ma ahayn. qoladii meesha wax ka samaysay ama ha isqarxiyo ama miina ha geliyo ama hoobiyaha ku soo tuuree, markuu arkay ceebtii meesha ka dhacday dib ayuu u gurtay. laakiin taariikhdu waa sheegi doontaa maalin balaayada meesha ka dhacday. waa inaan tacsi iyo duco u dirno dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladii, waalidiintii dhashay, intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba. annagoo uga tacsiyeynayna dhacdadii naxdinta iyo ama kaaga lahayd ee ka dhacday Hotel Shamow maalintii Khamiista ee taariikhdu ahayd 3 December 2009. waxaa sameynaya dhaqan Soomaaliyeed ma Soomaali waa la yaqaanaa, culimadu ma taaban jirinba. xitaa markay dagaalanto oo iyadu isdili jirtay oo weligeed waynu isdili jirnay, ma culimaa la dili jiray? nin culimo oo la dilo weligeed maaragtay maya. nin carruurahoo la dila maaragtay, dumar la dila weligeed maaragtay. meesha hadda dumarkii iyo carruurtii iyo culimadii la laynayo, waad garanaysaa in gacan shay meesha ku jirto. ubadkii 18 sannadood ardayga ku ahaa xabadda iyo madfaca oo isagoo kalaaska ku socda dib uga soo noqonaya xabaddu markay dhacdo. waxaan leenahay ummadda ilaahay damiirkii dib ha ugu soo celiyo, kuwii dhintayna ilaahay ha u naxariisto, kuwa noolna ilaahay ha ka badbaadiyo, kuwa dhaawacana ilaahay dhaawaca ha ka kiciyo. ilaahay waxaan leeyahay asaga awood leh, Soomaaliya dhibta ha ka qaado, degdeg buu uga qaadi karaa. ilaahay asaga awoodda leh. maskaxdii bini aadamka waxay ku shaqaysaa caqligii dadkii Soomaalida ahay marka la laynayo wax laga aamuso maaha. waxaa muhiima dhalinyaro masaakiin oo intaas wadnankooda wax tari lahaa oo maalintii ay qalin jabin lahaayeen qortooda la gooyay, waa wax xanuun leh. dadkaas dhibaatada geystay annagu hadda garan mayno, laakiin waxaan u aragnaa dad dambiilayaal weyn. dad dambiilayaal ayaan u aragnaa oo meel dheer ka dagaalamaya. cabdifataax cabduqaadir cilmi, ETN, Leicester.